awshi macallimiinta quraanka aad gashaan miya ayadana waynu kala qaadaynaa dugsiga la kala gadanayo hadduu waqaf yahay lama kala gadan karo waqaf goormuu noqon karaa dugsiga ruux baa sadaqaystay dhismihiisa nin baa dhisay ama dhulkaba waqaf u bixiyay nin macallimu mas'uul uga dhigay ama macallimiin buu yiri dadka quraanka ku bara ama iyagu naadir uga dhigayo waqafkan mas'uul uga dhigay ma iibsan karaan waxa la mid ah xoolahan dugsiga lagu dhisay dadka laga soo ururiyay masaajida looga istaagay ganacsatadu u tagay wuxuu yiri nimayahu masaajid waxaan dhisay dugsi baan dhisayaa muxuu carruurtu wax ku barato waxaan rabaa inaad dugsiga dhistaan way sadaqaysteen way dhiseen waa waqaf jeebkaaga kamaadan dhisanin hooyii aabana kaaga ma tagin xoolaha waa xoolo caam oo muslimiinta iska leh kaasoo kalena ma iibsan kartid lamana kala gadan karo laana waa waqafkunu iib ma galo xaaladda saddexaad ee soo hadhay wax weeyaan in uu ninku jeebkiisa ka dhiso dugsiga ama dhulkan dugsiga ku yaalaba asaga private iyo si khaas ah u leh dhismahana isaga jeebkiisa ka bixiyay mana waqfin oo waqaf ugu ma talagelin markaasi waa hantidiisi khaaska ahayda waa iibsan karaa malafa suuradahaasi kala leedahay waa hantidiisi dhulkana waa iibsan karaa dhismahana waa iibsan karaa hayl ma sadaqaynin ma waqfin wuxuu ugu talagalay in muddo laga faa'iideysto kadibna isagu intifaacsado markaas oo kale waa la kala gadan karaa ama dhulka ama dhismaha suura afraad baa soo hadhay oo suurtagal iyada lafteeda in waxa la kala gadanayaba aysan dhismahan iyo goobta ahayn customka la kala gadanayaaba Soomaa adar wuxuu leeyahay dugsigan waan dhisay dad badan baan ku soo xidhay 300 oo ilmood baa dhigata ganacsigaas iga soo gala hawshaas kala socota iga iibso marka hadee dhis kuma saabsanee ninkani ganacsi uu abuuray buu doonayaa inuu dadka gado xaaladda iyada ah ima muuqato inay bannaan tahay sababtu maxay tahay mas'alada quraanka oo dadka la baro ujuura ma lagu qaadan karaa baadoodi ka taagnayd haddana waxaad u badashay furaaban ku qaadanaya sooma marka hawshiyo tawassuc lagu sii sameeyay haddaad wuxuun iibsan karto waa dhismo ka soo jeeda ama dhulkood leedahay laakiin dadkan iyo caruurtan iyo adigu ma lihid quraanka aad barayso wax ma ku qaadan karaa doodeeda ha jirto laakiin waxan kale ee leedahay intan aan isku qoofalay qiimaha iga siiso ilama aha inay saxsanaanayso maxaa yeelay ganacsi baa marka loo bedelay quraankuna ganacsi ma noqdo arrin furo iyo custom lagu kala qaatana quraanku ma galo